kadib markii maalinkii shalay ay magaalada Boorama culimada qabanaysa kulanka saddexaad ee Ansaarul Sunna ay soo gaadheen magaalada Boorama ayaa Dr. Sheikh Xasan Sheikh Cali Warsame oo kamid ahaa culimada waaweyn ee Somaliland iyo culimo kale waxay saaka ay kulan ku qabteen Dugsiga Sare ee Ubaya Binu Kacab waxana halkaasi soo dhaweyn diiran ugu sameeyay maamulaha Dugsiga Sare ee Ubaya Binu Kacab Mustafa Muhammad Allabari macallimiinta iyo ardayda dugsigaasi culimada diinka ayaa ardayda Dugsiga Sare oo Ubaya Binu Kacab u soo jeediyay muxaadarooyin dhinacyo badan taabanaya iyo dardaarno la xiriira sidii ay ardaydu ay noloshooda isbedel u sameyn lahaayeen maamulaha Dugsiga Sare ee Ubaya Binu Kacab Professor Mustafa Muhammad Allabari ayaa isagu soo dhaweeyay culimada diinka waxana uu ardayda kula dardaarmay in muddada ay joogaan culimadaasi laga faa'iideysto culimada martidayno ah ee ugu horeeyo Dr. Sheikh Xasan Sheikh Cali Warsame oo runtii maxaaday ducada waaweyn ee Somaliland gaar ahaan gobolkii maxaaday Togdheer oo halku ka yimid aadakaysaan iyo culimada kale maxaaday Hargeysa ka yimid Yaasiin ay ku jiraan waa soo dhaweynaa runtii waxa ku soo dhaweynaa Dugsiga Sare ee Ubaya Binu Kacab ka arday ahaan waxaad la socotaan waxa maalmahan shalay aad loo soo dhaweeyay culimo fara badan oo nadweyn ku qabtay magaalada Hargeysa tiibay maxaaday doctorka iyo gobolkooda ku tartamanaa magaalada madax labaad bay noolahay iyo magaalada madaxda labaad baa laakiin cidii lagu bilaabay maxay laba laga dhigay halkaas ay ka caddo maxaaday waxaan leenahay markasta marka Hargeysa lagu bilaabo kalabaad wuxuu ayo maxaaday cididsan insha Allah culimada waaweyn oo iman soo waxa isku daynaa insha Allah intay joogaan inaan maalin kasta ka faa'iideysano culimo mid kamid ah waxyaabaha ugu waaweyn maxaa waxbarashada lagu yaqaanay waxa tarbiya iyo tacliim wasaaradda tarbiya iyo tacliim baa loo jiray tarbiyada loo risiin jiray ummadda haday maxaa tarbiya iyo akhlaaq iyo wadana aqoon maadi waxa ma qabato marka sidaa u asturantiin sidaa u xijaabatiin sidaa u wanaagsan u fadhidaan haynaga muuqdo insha Allah ta'ala iskuulo badan buu soo maray maxaaday salaame iyo iskuulo badan buu soo maray hadhow wala barbar dhigaya iskuulka iyo iskuulkaas soo marnay wax wanaagsan insha Allah ta'ala haynaga qaabo daqiiqadaha kooban ee sheekhu loo joogo insha Allah ta'ala si fiican loo dhigeysto ku soo dhawo doctor talooyinka soo jeedinaya waxa kamida si aynu waxa weeye adduunkana guul aynu u gaadhno aakhirana mustaqbal wanaagsan aynu u yeelano ko waxa ka ah inaad hadaf yeelato yool inaad yeelato hiigsi inaad leedahay maanta waxaad joogtaa 2021 bal indhaha intaad isku qabato 2030 Faadumo ama Maxamed ama Aisha ama Ismaaciil 2030 imsa ka dhiman imsa sana ka dhiman 9 sana ka dhiman 9 sana marka la gaaro xaalkaygu muxuu yahay qiimo intee leeg baan bulshada ku leeyahay ummadda ma dheeraad baan ku ahay mise wax baan ku soo kordhiyay qof muxtarama oo aqoon-yahana oo qoyskiisa iyo qaraabadiisu ay ku faanaan gobolkiisa iyo dadkiisu ay ku faanaan mujtamaciisa ku faano wax soo kordhinaya hal abuur leh ummadda wax u haya wax wanaagsan u haya wuxuu doona ha noqdo ma sidaas tahay mise waxa tahay qof lala tacaalaya dibkiisa sharkiisa ilaahay laga magan galayo la iska xakamaynayo bulsho iyo dawladba kharash lagu bixinayo sidii loo xakamayn lahaa sharkiisa iyo dibkiisa taada kala dooranaya qodob waxa uu yahay waxa weeye wadankeena waxa ku soo badanaya wixii tahriibka loo dhanay in qofkii uu doonayo mustaqbal wanaagsan inuu samaysto maanta isagoo Borama ku dhashay secondary kaga baxay intaaba wax la barayay lagu tabcayay aqoon la baray mustaqbal laga sugayay maanta inuu nolosha tii ugu adkayd inuu galo oo la jirdilayo oo sida uu uga badbaada ay adag tahay inuu waxa weeye mustaqbal aanu garanayn inuu heli doono inuu waxa weeye biimaha inta lagu u galo والله يا بالله يا تالله وخسارة وين أو كتب بالشدين أو كتب مامكين أو كتب دايرتين
cidda ugu badan ay ku dhacaysana waa macallimiintii tacabka geliyay ardaydaas iyo waalidiintii tacabka geliyay waxa weeye in juhdigoodii iyo dadaalkoodii la dayaco maanta kuwa badan oo tahriibay oo rafaad iyo silic iyo saxariir maray maanta markay halkaa gaadheen ayaa waxa weeye mustaqbalkoodiina baaba'ay waxay noqotay inay ka sheekeeyaan oo dhibkii soo maray wallaahi waxaan garanayaa kuwa muddo 10 sano ah shaqana aan gelin oo sharcigii lagu adkeeyay xaalad nafsiya oo psychologiyana ay ku timi oo nafta ka xanuunsanaya oo xitaa markii sharcigii la siiyay waxa weeye yiri waxaan ka soo kaban waayay dhibaatadii tahriibka iga soo gaadhay iyo dhibkii dambe igu dhacay sharcigu iga raagay ayaan ka soo kaban laahay oo maanta daadoodu konton jir ay cagacagaynayso oo nolosha ka dhacay meeshii uu doonaya waa gaadhay London buu joogaa Washington buu joogaa Roma iyo Paris buu joogaa laakiin nolosha waa ka dhacsan yahay mustaqbal haddaad doonayso horumar haddaad doonayso adaa gacanta ku haya Yurub iyo Mareykanna inaad tagtaa gacanta kuma hayso inaad Hargeysa tagtaana gacanta kuma hayso inaad Djibouti tagtaana gacanta kuma hayso inaad Borama fadhidaana gacanta kuma hayso waa adiga iyo doonitaankaaga iyo go'aankaaga iyo ficilkaaga gacanta ku haya عافيكم هليلين هويو هادوكم ددلتين هويو ما هرقلو هبينكي هويو درارتي ما هيبسد هويو أنا هليستا هيقوين هويو أنا هادكا وتين هويو وهودن دلكيني هويو ولا ما هراني هويو أنا هادكا وتين هويو أنا هليستا هيقوين هويو وحتى هيهوكيجي هويو هالبولها ودناي هويو كيديك هبيه هويو beerkayga laga hubay hooyo ana halista haygoyn hooyo ana haadka u tagin hooyo waa hodan dhulkeeniyo hooyo islaanta inaan bay dhashay kaliya magaalada Boorama degan tahay inaan kaliya lahayd inantii waa tahriibtay inantii markay tahriibtay magafihii baa qabsaday $10,000 keen buu yiri 10,000 baa loo ururiyay gabadha way dhimatay haddana lacag uu qaatay markuu lacag qaatay buu ku ayaa soo yiri gabadha way dhimatay marka waxay aaminsantahay laga qaranayo aniga weydiiso suuqa dhexdeeda taagan inantii ka waran marka dadka dhimay weydiisay waxaan ku xasuustay sida gabadhaasi oo akhriyay geerarka yar waa xaqiiq waxaan ku soo gabagabeyn la anigu arrinkaas oo ay xasuusiyay waxa jira dhawaanahan kooxo dadka tahriibiya oo degan magaalooyinka dhammaan Boorama laga bilaabo ilaa cirka magaalada biyo degan waa kooxo qarsoon oo wili aan la garan dhalinyarta waxay ku sameeyaan maskaxda ka qaldan waxay yiraahdaan waalidka ha u sheegin waxa dhacda ilmo yar oo 15 jir in Boorama laga tahriibiyo guri lagu hayo magaalada dhexdeeda oo isqaar ilmo yar taqaranayo oo leeyahay waalidka ha u sheegin waa la qaadaya waa la wadaya ilaa marka Liibiya la geeyo uma la soo baxaya sabrad ama garayd loo garaacaya inta kale waxa la siinayaa sharaab beer shaad kood aqar saacad loo iibi sheegeen marka waxaan dardaarankeedu yahay idinkay waalidkiin iyo idin dhaxayn marka akhlaaqda iyo dhaqanka fiican ee halkan kaga baxdaan akhlaaqda meel lagama taga ilaa jaamacadda ilaa inta mustaqbal wanaagsan gaaraysa insha Allah ta'ala haydin la socto inama iyo hablaba halla ilaaliyo dardaaranka fiican ee sheekhu ina siiyay ee qodobaysna hadda waxay nagu soo kordhay baraha bulshada oo dhalinyarada akhlaaqda laga lumiyo ayagana la iska ilaaliyo waxa wadankeena ku soo badanaya dad fara badan oo faafinaya afkaar kala duwan ama ha noqoto diin la'aanta iyo ilxaadka ha noqoto ama ha noqoto gaalaysiinta iyo tansiirka oo laga yaabo qofka si aan toos in loo geliyo si dadabsan oo markaas agu aanu dareemeyn in loo geliyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala hadin barakeeyo Ahmed Riyaal Tire wararka warbaahinta Awdal Media Group magaalada Boorama